Kalluunka ama malayga aan u naqaano libaax badeedka waa mid ka mid ah xayawaanada ugu qadiimsan, wuxuuna xitaa ka qadiimsan yahay dinosaurka, asigoo badaha iyo badweynada caalamka ku noolaa muddo ku dhow 400 oo sano. Waxaana la ogaaday in ay jiraan 450 nooc oo libaax badeed ah, kuwaasoo ku kala duwan xajmiga, muuqaalka jismiga, cuntada iyo habka iyo dabeecadda. Wuxuu ahaa nooca ugu dambeeyay ee la ogaaday libaax badeedka afka weyn u saaxiibka ah ee lagu magacaabo Megamoose. Waxaana la ogaaday noocan sanadkii 1976, asigoona markaasi kadib la arkay 41 jeer oo keliya. Waxaa macquul ah in aflaamta aad ku aragteen xayawaankan oo weeraro ba'an ku qaadaya dadka ku safraya badaha iyo badweynada, sidaasi daraaddeedna aad ka aaminteen inuu yahay mid shar badan oo aan naxariisan. Balse taasi maaha mid run ah, maxaa yeelay 450 nooc ee xayawaankan uu u kala baxo 20 nooc oo keliya ayaa dhibaateeya dadka. Waxaana celcelis la sameeyay lagu sheegay in ay 12 qof dhibaateeyaan sanadkii, waxayna dadka ay ugaarsadaan u badan yihiin dad raba inay sawiro kula galaan gudaha badda, sida dhacday sanadkii 2015. Balse taasi beddelkeeda dadku waxay dilaan 11,000 oo libaax badeed ah maalintii si ay uga ganacsadaan. Libaax badeedka cad waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay ugaarsadayaasha kuwooda ugu khatarta badan ee dhulka ku dul nool, wuxuuna dhirirkiisu gaaraa 6 mitir halka culeyskiisa lagu qiyaaso 2270 kilogaram. Waana mid jecel cimilada dhexdhexaadka ah, asigoo ku nool 250 mitir oo ah marka loo daadego gunta hoose ee badda. Wuxuuna awood u leeyahay inuu dhiigga ku daata badda ka ogaado fogaan dhan 5 kilomitir. Waxaana taariikhda ku xusan ciidan badeed Farisiyiin ahaa in koox libaax badeedyo ah weerar ku ekeeyeen doomihii ay la socdeen kadibna ay feenteen dhammaantood. Waxaana la sheegaa in arrintani dhacday qarnigii 5aad ka hor miilaadiga. Sida lagu sheegay daraasado dhowr ah, midda dheddigga ah waxay awoodaa in ay taran sameyso ayadoona garab ka helaynin midka labka ah. Seenta dambe waa mid muhiim u ah libaax badeedyada, waxayna u adeegsadaan ugaarsiga. Waxayna leeyihiin ilka aad u afaysan. Ilaa ay ka gaaraan da'da 30 sano waxay lumiyaan wax ka badan 1000 ilig, balse iligii ka dhaca wuxuu ugu soo baxaa 8 maalin oo keliya. Waxaa macquul ah in ay noolaadaan 6 maalin oo cunto la'aan ah, waxaana lagu qiyaasaa ilkaha ay leeyihiin 45 ilaa 50 ilig. Waxayna dhammaantood ilkahan ku yaalaan qaybta hore marka laga reebo 7 ilig oo gadaal ku taala. Waxaa ku waajib ah in ay mar walba socdaan oo ay dhex jeexaan biyaha. Haddii ay socodka joojiyaanna ugu dambeyn waa ay dhintaan. Waxay inta badan ku nool yihiin badweynada degan ayagoo cuna kalluunka ama malayga nabadgelyada jecel. Waxay leeyihiin koronto dabiici ah oo dareensiisa xayawaanada ay ugaarsanayaan, xitaa haddii ay dhaqdhaqaaq yar sameeyaan. Libaax badeedka ugu bootinta dheereeya waa mid lagu magacaabo Mako, kaasoo awooda inuu biyaha badda kor uga soo boodo fogaan dhan 9 mitir.